maamulka degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir ayaa howlgal burburina ka fuliyay degmada Yakshiid gaar ahaan xaafadda Carafaad. Howlgalkani ayuu maamulka degmada Yakshiid ku sheegay in ay ku burburiyeen dhismooyin si sharci darro looga dhistay xaafadda Carafaad. Sidoo kale maamulka degmada Yakshiid waxa uu sheegay in dadkii dhistay dhismooyinkaasi sharci darrada ah aysan haysan dukumeenti cadeynaya lahaanshiyaha dhulka iyo sidoo kale fasaxa uu bixiyo maamulka gobolka Banaadir ee la xiriira dhismaha dhulkaasi. Gudoomiyaha degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir Mudane Muuse Geesi Jimcaale ayaa warbaahinta ugu warbixiyay howlgalkaasi burburinta ah. waxaan rabaa in aan warbixin cid kasta ama mas'uuliyiinta qaranka ama shacabka degan gobolka Banaadir khaasatan degmada Yakshiid faahfaahin ka sii arintaas. gurigaas wuxuu ku yaalaa ama laga dhisay dhul la isku haysto oo kiiskiisu uu yaalo maxkamadda gobolka Banaadir. in markii laga dhisay isagoo qabyo ah ayaanu ogaanay, waanu joojinay, waxaanu ku niri dadkii dhisayay in ay ku ekeeyaan meesha uu markaas marayay inaan ku joojino oo maamulku uu yiri bartaah lagu joojiyo. waxaa dhacday in ciidan military ah la soo kaxaystay, habeenimo la dhisay, subaxina aanu ku soo kacnay gurigii oo dhisan. in markii aanu ogaanay arrintaas waxaanu la wadaagnay in madaxda naga sarreysay ee gobolka warqad ayaan u qornay. warqadii jawaabteedii intaan sugaynay waxaa abuurantay xaalad in dhib kale ka yimaado in aan uga baqnay. maamul ahaana waxaa jebiyey gurigaas in maamulka degmada Yakshiid isaga oo markii horeba aan ku dhisnayn sharciyan oo si khalad lagu dhisay, habeenimo la dhisay, ciidan military ay dhiseen. sida aad ogtihiin dhulka marka la dhisayo la iskama dhiso, waxaa lagu dhistaa nidaam sharci ah oo loo maro in fasaxa dhismaha. waxaa documents horta awalan qofku dhulka dhisanaya inuu haysto documents uu lahaansho isagu uu leeyahay. ثانيا inuu helo fasax dhismo oo gobolka Banaadir uu bixiyo, inuu soo qaato dhisto in buqcadda laga hubiyo in documentska in uu wato iyo buqcadda inuu dhiso uu doonayo inay isleeyihiin laga hubiyo, kadibna uu si sharci ah ku dhisto. waxaa dhacday marka dhulkaani wuxuu ahaa dhul la isku haysto oo dacwada ka socoto. labo, wuxuu ahaa dhul marka horeba in habeenimo iyo ciidan lagu dhisay oo aan loo marin processka sharciga ah ee dhismada. waxay cadeeyeen qoyskani wax documents oo ay u haystaan oo ay ku leeyihiin aysan jirin. marka dan guud ayay ku sheegeen idaacadda marka in ay ka hadlayeen muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa waxay u haystaan documents. dhanka kale Saacidi Maxamed Cumar iyo Xasan Macalin Cismaan oo ku hadlayay codka marxuun Salaad Macalin Cismaan ayaa sheegay in milkiyada gurigaasi ay iyagu leeyihiin isla markaana ay jiraan dad doonaya in si sharci darro ay ku dhistaan. hase ahaatee ku ammaanay maamulka degmada Yakshiid howlgalkaasi burburinta ah oo uu ku fuliyay dhismahaasi, iyagoo soo bandhigay dukumeentiyo ay ku sheegeen inay yihiin dhulkaasi. Saacidi Maxamed Cumar la yiraahdaa. dhulkaas anaka iska leh, ilmahaanaan iska leh yatiintee. gurigan hadda hortaagana kiraa ugu jiraa. 2 qolan ka degan waa $50 mana awoodo xataa inaan iska bixiyo. adoogoodne Koonfur Afrika lagu dilay 21 bishii afaraad la dilay. cunuga mulqo on sidane 20 biro dhalnay maalinkaas 45 biro dhalanta. dawladda waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha gobolka waxaan ka codsanaynaa inay dhulkeena nooga qaadaan. sabar loogadiisana ana gacanta ku haysto. 5 cunug iska dhulkaas waa 2 wiil iyo 3 gabar. waxaan halkan baa ugu dirayaa dawladda Soomaaliya oo uu weyn yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, gudoomiyaha baarlamaanka. waxaan halkan baa ugu jiraa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish. waxaan halkan ka soo jeedinaa dhulkeen oo ku yaal degmada Carafaad anigoo Xasan Macalin Cismaan, reer Macalin Cismaan. dhulkeen ayaa waxaa lagu haystaa xoog
wuxuu ku yaalaa degmada Yaaqshiid gaar ahaan Carafaad. waxaan tagnay degmada, waxaan tagnay saldhigga, waxaan tagnay laanta muddo 6 bilood aan ka daba wareegaynay. 2017 maxkamadda ayaan geynay dacwadiisa. waxaa dhacday dhulkii in macnaha boob lagu sameeyo, waan u tagnay si ahlnimo qaraabnimo waxaana dhulkan joojiya. dacwadiisa maxkamadda ay taallaa, dukumiintiga waa kanaad u jeedaan. shalay ayaa waxaa tegay ciidamo manishiibiya dhulkii waxaa la dhismay joojiyo. gudoomiyihii waxaa yidhi degmada wuxuu dhulkan hala joojiyo waa sharci darro. waayey gudoomiye waa joojinaynaa, mayse joojin. habeen madoobay dhisteen. haddii habeen madow dhisteenna waa laga jibiyey. wuxuu yidhi duqa meesha degan wuxuu yidhi waxaan degana 15 sano. waa beentiis. saldhiggaa dacwo ka qoray inuu degaya dadka dhan xaafadda dhan dhulkaas anaga iska anagoo reer Macalin Ismaana. waxaan ka codsanaynaa dowladda in dadkaas dhulkeen noogala kiciyo. dukumiintigiisa waa kana, warqadii fasaxa waa u haysanaa, gobolka Banaadirna soo siiyeen, warqadiina waa kuwaas. halkaasaan ku cadaynaynaa. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.